Faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay qaraha. Qaruhu waxa uu ka mid yahay furuudka ka baxa dalkeena, waana furuud inoo soo go'o xilliga xagaaga ah. Waxaa lagu yaqaanaa dhadhan wanaagsan iyo midab qurxoon, sidaa darteed dadka oo dhani way jecel yihiin. Waxaa ku jira faytamiino badan iyo nafaqo muhiim ah oo caafimaadka jirka aan looga maarmin. Sida uu qoray website-ka Healthy, qaruhu ama xabxabka faa'iidooyin badan ayuu u leeyahay jirka aadanaha. Faa'iidooyinka qaraha uu u leeyahay caafimaadka jirka aad ayay u badan yihiin, balse waxa aan dul istaagi doonnaa kuwa ugu muhiimsan. Qaraha waxaa laga helaa maadada collagen oo ka qayb qaadata xoojinta caafimaadka jirka, way ifisaa jirka, waxayna ka ilaalisaa calaamadaha duqnimada. Qaraha waxaa ku jira biyo badan, waxaana hooseeya kalooriyaska uu leeyahay. Sidaa darteed waxaa laga helaa firfircooni, baruurtana waa lagu jaraa. Qaraha jirka waxa uu ka ilaaliyaa cudurrada kansarka noocyadiisa kala duwan, sida kansarka sanbabaha, kansarka naasaha, iyo kansarka prostate-ka. Qaraha jirka waxa uu ka ilaaliyaa xanuunada wadnaha, istaroogga. Sidaa darteed, faytamiinada faraha badan ee ku jira iyo nacfiga cunno ee uu leeyahay waxay muhiim u tahay badqabka wadnaha iyo jirka. Caafimaadka indhaha iyo sanbabaha aad ayuu ugu fiican yahay furuudka qaraha. Nacfiga iyo faytamiinada laga maarmaanka ah ee caafimaadka indhaha ayaa laga helaa qaraha. Qaraha waxa uu kaalin weyn ka ciyaaraa xoojinta raganimada iyo awoodda bacriminta qofka. Biyaha iyo sonkorta ku jirta qaraha heerka sonkorta jirka ayay xakameeyaan. Sidaa darteed, bukaanada qaba cudurka macaanka ama sonkorowga waxaa lagula taliyaa in ay joogteeyaan isticmaalka qaraha inta ay awoodi karaan. Si loo xakameeyo caafimaadka beerka iyo kelyaha, qaraha waxa uu kaalin weyn ka qaataa badqabka iyo joogteynta shaqada beerka iyo kelyaha. Waxa uuna ka ilaaliyaa inay howlgab noqdaan ama cudurrada kansarka ay ku dhacaan. Qaraha waxaa ku jira dheef muhiim ah oo dhiig karka lagu dejiyo. Qaraha waxa uu xoojiyaa habdhiska dheefshiidka, waxa uuna ka hortagaa dhibaatooyinka caloosha ee caloolamajiirka uu ka mid yahay. Qaraha waxa uu xoojiyaa caafimaadka iyo koritaanka timaha, caabuqana wuu ka ilaaliyaa. Si loo xoojiyo caafimaadka lafaha, waxaa laga maarmaan ah furuudka qaraha. Waxa uu qofka ka ilaaliyaa lafa jilaaca iyo caabuqyada kala duwan ee ku dhaca lafaha.